haddaba barnaamijkeena waxaynu ku soo qaadan doonaa wararkii ugu waaweynaa ee soo kordhay xaaladda bariga dhexe dagaal aad u culus oo ka qarxay mar kale bariga dhexe sacuudiga oo ku soo biiray dagaalka maraykanka iyo sacuudiga oo wada socda oo markaa duqeeyay goobo ay deganaayeen awlaadii Iiraan ee magaalada Baghdad iyo meelo kale oo ka tirsan gudaha dalka Ciraaq Iiraan oo ka carootay in la taabto awlaadeeda ayaa sawaariikh ku harqisay saldhigyada Maraykanka ee gobolka waxay soo kale ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan sheegeen 3 markab oo amarkooda diiday oo isku dayay inay maraan Hormuz inay saakay nagta ka saareen xaaladahaas ayaa soo kordhay bariga dhexe intaan ku jirno wixii warar ee soo kordhana waan idinla socodsiin doonaa Safari Remit waxay ka caawinaysaa inaad reerkaaga iyo saaxiibada ku nool dalal dhowr ah aad gaarsiisid wixii aad ugu tala gashay ilaa iminka wadamada ay xawaalada kugu diri karto waxa kamid ah Kenya, Soomaaliya, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo Turkey qiimahana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaalada xawaaladan waa online waxaa dhammaanba bulshada lala socodsiinayaa meel kastoo ay joogaan gaar ahaan dalka Kenya ee geeska Afrika iyo magaalada Nairobi inay jirto shirkadda caan baxday shirkadaha uga duwan xagga diyaarinta dhismayaasha dhaadheer oo waa shirkadaasi caanka ahi waa shirkadda lagu magacaabo Emara Luxury Homes Limited ee fadhigeedu yahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya gaar ahaan Kilimani iyo wadada caanka ee lagu magacaabo Leilani Road aad aragto wuxuu ka bilaabanayaa 4 bedroom desk U, 3 bedroom desk U iyo 3 bedroom desk U iyo 2 bedroom desk U adeegii guri lahaa oo dhanna waa wataa shirkadu maanta waxay idiin soo gudbinaysaa qiimo dhibid aan ugu magac daray hoygu waa muhiim hantiyeelo oo soconaysa 5 bilood hadda ka hor qiimo dhibidii aan soo celinay 2 bilood ahayd walaalo badan baa ka faa'iideystay oo dal iyo dibadba jooga haddana mar labaad waan soo celinay waxaan ugu baaqahayaa bulshada Soomaaliyeed ee adduunka dacaladiisa joogta inay ka faa'iideystaan adeegga maamuus ee shirkadda Hormuud waa xirmooyin adiga ku gaar ah oo ka kooban internet kaliya ku hadal kaliya ama internet iyo ku hadal wada jira naftaada ku maamuus xirmooyinka adeegga maamuus oo kaga shubo hadda xidig 212 4 dhammaan bulshada waxaa lala socodsiinayaa gaar ahaan magaalada London in xarunta dhinaca caafimaadka French and Overseas Clinic ay ku taalo meel aan ka fogeyn stationka tareenka Baker Street ee bartamaha magaalada London halka waxaa jooga dhaqaatiir kala duwan oo ka daaweynaya cudurro ay kamid yihiin kuwa maqaarka kuwa carruurta kuwa haweenka iyo cudurrada guud dhaqaatiirta halka ka howlgashay howladaynadooda waxay diyaar u yihiin inay wixii caafimaad ay kula qabtaan waxa intaas dheer in xaruntaasi French and Overseas Clinic ay ka howlgalaan dad Soomaaliyeed oo aqoon u leh xagga caafimaadka dadka Soomaaliyeedna si gaar ah ula shaqeeya haddaba bulshada meel kastoo aad joogtaan way ka abaal sheegteen intii tagtay xarunta caafimaad ee French and Overseas Clinic ee aduunkuna ma tagtaa kulanti wanaagsan asxaabay meel kastood naga daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamijkeena ugu horeeya barnaamijyada maanta aan idiin soo gudbin doono oo Arbacaha taariikhduna waa 29 bisha 7 2026 dagaal aad u culus ayaa mar kale ka qarxay gobolka bariga dhexe iyadoo Sacuudiguna uu si toos ah u galay dagaalka isagoo la safan Maraykanka haddaba sidee wax u dhaceen saacadihii la soo dhaafay wararkii ugu waaweynaa ee ka dhacay bariga dhexe ayaynu barnaamijka ku faahfaahinaynaa haddaba telefishinka Al Jazeera ayaa wuxuu qorayaa warbixin uu leeyahay Maraykanka iyo Sacuudigu waxay si wada jira u fuliyeen weeraro ay markaasi ku qaadeen Ciraaq haddaba Maraykanka iyo Saudi Arabia waxay sheegeen inay markaa weeraro wada jira ku qaadeen gudaha Ciraaq iyagoo bartilmaameedsaday saldhigo ay leeyihiin kooxo ay ku tilmaameen jamaacaad hubaysan oo xiriir la leh Iiraan iyadoo markaasi laga jawaabayo weeraradii dhawaan Sacuudiga uga yimid dhanka Ciraaq haddaba waxaa la sheegay kooxahaasi la weeraray inay fulinayeen arrimo ku saabsan ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan fariimo ay u gudbiyeen saacadihii la soo dhaafay wasaaradda gaashaandhigga ee Saudi Arabia oo saakay soo saartay oo Arbacaha bayaan rasmi ah waxay ku sheegtay in ay fuliyeen ciidamada Saudi Arabia weeraro dhinaca cirka iyagoo kaashanaya taliska dhexe ee ciidamada Maraykanka waxaana ay sheegeen inay beegsadeen goobo ay ku sugnaayeen gudaha dalka Ciraaq maleeshiyaad ay sheegeen
inay ahaayeen kuwii weerarka ku soo qaaday dhowaan goobaha batroolka ee Saudi Arabia. Sacuudiga iyo Ameerikaana isa soo raacay saakay awlaadii Iiraan ee Ciraaq joogtay ayaa beerka laga tumay. awlaadii waxay soo saareen war khasaaraha weerarka loo geystay iyo halka uu gaarsiisan yahay iyo sida ay wax u gaareen. haddaba warbixintan waxaa soo saaray ciidamada la yiraahdo al-Hashd shacbi ee dalka Ciraaq, kuwaasoo lagu tilmaamo inay xiriir dhow la leeyihiin Iiraan. waxay sheegeen 20 inay ka dhimatay 32 kalena ay ku dhaawacmeen markii weeraro ay sheegeen in lagu soo qaaday xarumahooda. haddaba ciidamada la yiraahdo al-Hashd shacbi ee dalka Ciraaq ayaa waxay sheegeen khasaare xoog leh inuu soo gaaray weeraradii lagu soo qaaday, balse waxay wacad ku mareen inay ka aargudan doonaan Sacuudiga iyo Mareykanka oo markaa iyagu si wada jira u soo weeraray xarumahooda ay ku lahaayeen gudaha dalka Ciraaq. ciidankan shiicada waxaa la yiraahdaa al-Hashd shacbi la yiraahdaa. waa ciidan Iiraan ay samaysay oo awlaadeedii ah oo jooga Ciraaq. marka Sacuudi iyo Mareykan oo wada socda ayaa saakay weeraro ku hurgufay. marka Sacuudiga iyo Ameerikaanku waxay u maleynayeen awlaada kaliya inay hawsha ku koobnaanayso. awlaadii Iiraan inta taabatid ayaa Iiraan ka aamusay xagee laga qoray. sheekadaas waxa qoran ma isla markii ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan ayaa waxay ku jawaabeen saldhigyada Mareykanka ee gobolka in iyagana lagu harqiyo gantaalo lagu harqiyo, iyadoo laga jawaabayo khasaaraha loo geystay awlaadeeda. haddaba markaan idin tuso ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan ayaa waxay sheegeen inay iyaguna garaaceen oo ay bartilmaameedsadeen saldhigga ciidamada Mareykanka ay ku leeyihiin dalka Urdun. haddaba ciidamada Iiraan waxay sheegeen in saldhiggaasi ay garaaceen iyagoo isticmaalaya gantaalaha nooca loo yaqaano balastiga. haddaba waxaa la sheegay xaaladdu inay aad u kacsan tahay. Iiraan waxay sheegtay inaanay marnaba aqbali doonin in weerar lagu qaado waxay ku tilmaantay masaalixdeeda gobolka oo ay ula jeedo awlaadeeda iyo halka ay degan yihiin in la weeraro. haddaba waxay sheegtay Iiraan inay tahay in degdeg loo joojiyo weeraradaas oo markaa ay sheegtay inay yihiin kuwo markaasi xadgudub ku ah qawaaniinta caalamiga iyo masaalixda Iiraan ay ku leedahay gobolkaasi. Iiraan marka maxay tiri waa u aarnay tiri nimankii Mareykanka ay Urdun joogay iyaguna nagta ka saaran. digniin kalena waa sii raaceen oo hal iska daayaan nimankan yaa mar kale loo celinin weerar. Sacuudi iyo Mareykan maqla mar kale awlaadeeda yaa la isku taabanin. hadda jugtii laga geliyo xagga anna jugta ka geliyo waay. Urduna marka war soo saartay warka Iiraan inuu saxan yahay iyo in kale macnaha ma weerartay Iiraan Urdun mise ma weerarin mise war kaliya waaye. sheekadu marka halkaas mareen. haddaba marka waxaa la yiri ciidamada Urdun ayaa iyaguna saakay war soo saaray. waxay sheegeen inay soo rideen 5 ka mid ah gantaalihii Iiraan ay ku weerartay boqortooyada Urdun. wakaaladda wararka ee Urdun ay soo xiganaysa afhayeenka rasmiga ciidamada dalkaasi ayaa wuxuu sheegay difaaca cirka Urdun inay markaa saakay oo 4 soo rideen 5 ka mid ah gantaalihii ka yimid dhanka Iiraan, kuwaasoo lagu soo weeraray dhulka boqortooyada Urdun sida uu yiri. waxaana uu sheegay inay ka hortageen weeraradaasi. afhayeenka ciidanka Urdun waxa uu sidoo kale sheegay inay sii gudan doonaan waajibaadkooda inay ilaaliyaan hawada boqortooyada Urdun weerarada kaga imanaya dhanka Iiraan inay ka hortagayaan. marka iyaguna waxay leeyihiin gantaalihii Iiraan waa qarxino hawada ku qarxinay qaar ka mid ah, qaarkii kale waa xaroodeen. marka meeshaasu saakay sheeko cusuba bilaabatay. Sacuudi Arabia waxa uu faraha la sii galay
oo uu ku sii fogaaday iiraan iyo awlaadeedii inuu maaragtay weerara ku qaado uu dad ka laayo. sheekadu marka way sii xumaanaysaa. dadka wax falanqaynaya waxay leeyihiin iiraan iyo awlaadeeda wax ka hadlaysan mal iiraan 24 saaca jugta lagu hayaa, iyadana waxay rabtay jugta ku haysaa. laakiin cidda dhibaatadan ay saameynta weyn ku yeelanayso yaa waaye waa Saudi Arabia. Saudi Arabia waa wadanka ugu badan ee bariga dhexe ee ay booqdaan dadka ugu badan ee caalamka oo u taga halka xaj iyo cumro diyaarado fara badan taga. waa wadanka ugu badan ee soo saara shidaalka gobolka bariga dhexe oo macnaha shidaalka ugu badan laga soo saaro. waa wadan ku haminaya mustaqbalka 2030 hamilooyin fog waxyaabo badan in la sameeyo. marka waxa la leeyahay wax ka halaabayaan, waxay ku doodayaan Sacuudiga waaye ninka ugu badan ee khasaaro uu ka soo gaarayo hadduu dagaalkan sii wado awlaadeeda iyo Iiraan inuu dagaal ku hayo isaga ugu badan dhibka ugu badan soo gaaray. hadda diyaaradihii ha sheegin maaragtay Bahrain iyo Kuwait iyo Qatar iyo Imaaraad iyo gobolkii oo dhan waa laga baqayaa. Sacuudiga kaligiisa hadda wanaagsanaa oo hawlihiisu socdeen, asagiina hadduu baashu sii dhex galo waxaa leeyahay khasaarihii ugu weynaa abid ayaa Sacuudiga ka soo gaari doona weeraradan. marka sheekadaas iyaduna wararka cusub ay ka mid tahay. ma jeceshahay barashada qur-aanka kariimka iyo culumta shareecada hab casri ah online ah adigoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqada? markasu daaru taqwa waxa kugu baraya qur-aanka hab casri ah online ah. maadooyinka aad ka baran karto waxaa ka mid ah qur-aanka kariimka, higaada, luqada carabiga iyo culumta shareecada. isdiiwaangelintu way socotaa, fadlan hore u gaadh. waxay faahfaahin kala xidhiidh nambarada shaashada kaaga muuqda. hamogaadin dugsiga markasu daaru taqwa. waaye qaybta kale ee barnaamijkeena ugu dambaysa waxaynu ku soo qaadanaynaa Hormuz. Iiraan oo awlaadeedii la taabtay oo caraysan ayaa 3 markab waxay yihiin lama sheegin ee cidda iska lahayd wali ayaa waxay diideen awaamiirta Iiraan. wariyaa ka joog ha isku marin iyo waa maraya camal. 3doodiiba nagta laga saaraalay. Iiraan war soo saartay waxay tiri waa iska dhaga tireen anagoo ilaa meesha joognay in kala maba ogaba nimankan maxay ahayd niman cabsan warka joog maya hay soo dhaqaaqay uu soo dhaqaaqay markaas ha jugta laga geliya lagu leeyahay. haddaba marka aan tuso telefishinka Al Jazeera wuxuu leeyahay ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan ayaa waxay sheegeen saakay 3 markab oo kuwa qaada shidaalka inay bartilmaameedsadeen oo ay garaaceen kuwaasoo marayay maranbiyoodka Hormuz. haddaba ciidanka ilaalada kacaanka ayaa sheegay 3 markab ee shidaalka qaadayay inay marayeen meel aan aamin ahayn oo ah maranbiyoodka Hormuz. haddaba waxay meetani muujinaysaa Iiraan inay weli sii maamulayso maranbiyoodka Hormuz oo si kaamil ah oo dhammaystiran ay gacanta ugu hayso maamulkiisa. waxayna tani muujinaysaa cidaysan Iiraan amar siinin inay gudubto inaanay halkaa ka gudbi karin. idaarada kaamilkeeda maamulka dhammaystiran annaga gacanta ku hayna leedahay. meeshaan Maraykan wuxuu wax gudbi karo iyo cid kale oo cid gudbin karta meeshaan male. wixii gudba waa waxaan ognahay annaga aan gudbinayn. laakiin niman meeshaana 3 gab waa maraynaa ha haye nagta ka saareen. marka ilaa hadda cidda iska lahayd maraakiibtaas iyo wadamada laga lahaa iyo wixii lahaa weli lama hayo, laakiin way soo bixi doonaan oo gadaala laga ogaan doonaa. markay jawiga guud ee bariga dhexe mar walba colaadu nooc kale iyadoo ay soo bilaabaneen. waa meel kaaro ku dhacday aanu mariyay, waa la yaaban yahay meeshaas. ilaahu xaalka deji. dadka marka dhibaatay ku jiraan maalin walba waji cusub. Israa'iil hadda way nasanaysaa iyadoo meelay ku jirtaa baarkay ku jirtaa. way sugaysaa waxa kan Sacuudigii iscelinayay waa soo galay, cid kasta waa soo gashay, hadda qolo kasta waa soo gali doontaa. dagaalkan marka wuxuu noqon doonaa leeyahay haddaan hadda laga hortagin dagaal gobolka oo dhan wada guba ayuu noqon doonaa. bal adikuna fakar iyo aragti waxaad haysaan noo soo qora. maxay idinla tahay waxa kanu maxay ku dhammaan doonaan, xaalku muxuu noqon doonaa? aragtidiina waa muhiim, noo soo qora. barnaamijkaygii koobaad oo aan idiin soo gudbinaynay maanta Arbacaa waa naga intaa. wixii soo kordha haddii alla idmo barnaamijyadayda kale ee soo socda
ayaan idinkula wadaagi doonaa. meel kastoo aad naga daawanaysaan like gareeya oo share gareeya barnaamijka. haddaad ku cusub tahay channelkana ha iloobin subscribe inaad ka samaysatid youtube-ka, facebookana aad follow garaysid. inta aan markala kulmayno asxaabay nabadgelyo.